Videogan waxaan ku raadinaynaa areada functionkan f of x oo ah x squared intervalkan 0 ilaa iyo 1 sida aragtiin 0 ilaa iyo 1 annagoo u qaybinayna 4 rectangles with 4 rectangles marka lower sumka ayaana la ka rabaa with 4 rectangles marka intervalkeena kan 4 rectangles ayaan qaybinaynaa marka waxay noqonaysaa sida tan marka intervalkeena kan ayaan waxaan u qaybinaynaa 4 marka waa 1 loo qaybiyay 4 marka waxaa noo soo baxaya each rectangle widthkiisu wuxuu noqonayaa 0.25 ama 1 quarter each rectangle aad aragtiin waxa weeyaan 0.25 widthkiisa marka areada ayaan rabnaa weliba lower sumka saad aragtiin waxa weeyaan lower sum waxaa loo leeyahay because waxaan isticmaalinaa lower intervalka marka hadda squaregan rectanglekan koobaad aad aragtiin waxa weeyaan 0 laga bilaabo ilaa 0.25 of course widthkan haysano waxa weeyaan 0.25 laakiin heightkiisa waxaan isticmaalaynaa lower intervalka oo 0 ah 0.25 ilaa iyo 0.5 waa rectangleka kale widthku waxa weeyaan waa 0.25 heightkana ama lengthga waxaan isticmaalaynaa lower intervalka oo ah 0.25 ayaan functionka gelinaynaa macnaha waxaan isticmaalaynaa heightkan oo ay leedahay 0.25 si aan kusoo saaraynaa heightkan 0.25 ay leedahay functionka ayaan gelinaynaa booski x marka saas ayaa loo dhahaa lower sum marka haddaan raadino areada afarta triangle marka waxay noqonaysaa sidan rectangleka koobaad areadiisa waxa weeyaan widthka ayaan soo qaadanaynaa marka koobaad 0.25 kadibna waxaan ku dhufanaynaa heightka heightka lower intervalka ayna siinayso ama f of 0ga f of 0 ayaan ku dhufanaynaa kadibna waxaan ku daraynaa rectangleka kale waxa weeyaan waa widthkiisa ayaan soo qaadanaynaa 0.25 kadibna waxaan ku dhufanaynaa f of rectanglekan labaad f of waxaan soo qaadanaynaa lower intervalka 0.25 kadibna waxaan ku daraynaa marka saddexaadna waxaan soo qaadanaynaa 0.25 rectangleka saddexaad waxaan ku dhufanaynaa widthka lower intervalka oo ah f of 0.5 kadibna waxaan ku daraynaa rectangleka ugu dambeeya 0.25 oo aan ku dhufanayno f of rectanglekan oo aan ku dhufanayno lower intervalka oo ah 0.75 marka inta markaan keennay waxa weeyaan waan isku daraynaa si aan u keenno final solutionka marka midka koobaad waxa weeyaan 0.25 lagu dhuftay f of 0 booski 0 unba waxaan booski x squared unba waxaan gelinaynaa 0 marka kadibna waan square garaynaynaa kadib waxaan ku daraynaa 0.25 waxaan ku dhufanaynaa f of 0.25 marka booski x unba waxaan gelinaynaa 0.25 kadibna waan square garaynaynaa midka saddexaadna waxa weeyaan 0.25 lagu dhuftay 0.5 kadibna waan square garaynaynaa kadib finally waxaan ku daraynaa rectangleka ugu dambeeya 0.25 lagu dhuftay 0.75 kadibna waan square garaynaynaa marka intaas markaan isku darno waxaan helaynaa sumka lower sumka afarta rectangles oo intervalkan ay ku fadhido ansadu waxay noo soo baxaysaa 7/32 weeyaan areada noo soo baxaysa oo lamid ah 0.21
875 0.21875 marka sidaas ayaan ku keenay the lowest sumka anagoo isticmaalina 4 rectangles